بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد walaalayaal markale waxaad kusoo dhawaataan casharkeenii nutritionka iyo dietka cuntada iyo nafaqada ee aan mar walba uga hadli jirnay cuntada iyo caafimaadka sida ay iskugu xiran yihiin. waayahay casharkeena maanta waxaan jeclahay inaan uga hadlo cashar xaqiiqi aad iyo aad muhiim u ah. casharkaas waxa uu ku saabsan yahay lix faa'iido oo laga helo qofka marka uu cuno kalluunka ama fishka ama malayga waxa loo yaqaano qofka marka uu cuno. laakiin marka hore waxaan jeclahay in aan ka hormariyo kalluunka sidee loo cunaa inaan ka hormariyo, sababtoo in badan oo kamid a dadkeena yani waxa cuntadii si qaldan ayay cunaan. marka kalluunka haddaad si qaldan u cunaysid faa'iidadiisii waxba kuma soo gaarayso, sida kaliyana maaha cuntooyinka kale oo dhan ayaa la mid ah. marka mar walba waxaa ka muhiimsan cuntada cunitaankeedii sida loo karinayay iyo sidii aa cunaysay ayaa ka muhiimsan. marka wax badan waan kasoo sheekeenay sidii loo cunayay, laakiin sida loo kariyo kalluunka ama malayga waxaa ugu fiican labasi inaad mar walba samaysid. kow waxaa samayn kartaa kalluunkii waxaa ku samayn kartaa biyo ayaad ku karin kartaa. marka biyahaas ayuu ku bislaanayaa, ayuu ku korayaa, markaas cuntadaada caadiga oo ku cuni kartaa ama se keligiis waa cuni kartaa. waa optionka koowaad ama waxa waaye sida koowaad u samaysan kartid kalluunka. qaybta labaad kalluunka u samaysan kartid waxaa waaye grill ayaa ka dhigi kartaa waxa loo yaqaan, ama waa dubi kartaa. marka maxaan ka ilaalinaynaa? waxaan ka ilaalinaynaa saliid aan loo baahnayn inaad ku dartid. waxa weeye faa'iidadii oo dhan aad ka helileed kalluunka markaas saliidii ay qaribto. dad badan waxay ku daraan cusbo, sidoo kale cusbo looma baahna inaad ku dartid. waxyaalaha kaloo lagu dhanaaniyo ama lagu macaaniyo waa ku dari kartaa, laakiinse yani waxa waaye cusbada inaad ka ilaalisid ayaa loo baahan yahay kalluunka marka aad karsanaysid. labadaas shardi waa shardi muhiim ah si aad u heshid faa'iidadii aad ka heli lahayd kalluunka markaa cuntid. waayahay faa'iidada koowaad waxaa waaye kalluunka waxa uu leeyahay wax la yiraahdo omega 3 fats. omega 3 fats waa subaga qayb ka mid ah. subag bani aadamku u baahan yahay ayaa jira iyo subag uusan u baahnayn. casharadeeni hore ayaa uga sheekeenay, dib ayaad ugu noqon kartaa. marka omega 3 fatska waxa waaye subaga jirkaaga uusan sameyn ee loo baahan yahay inaad cuntada ku heshid. marka banaanka inaad ka heshid loo baahan yahay sababtoo jirkaaga ma sameeyo. marka meelaha ugu fiican ee laga heli karo omega 3 fatska waxa waaye kalluunka ama malayga ayaa laga heli karaa. omega 3 fatska yani waxa waaye xagga maskaxda oo kale ugu fiican yahay, way ku shaqaysaa. jirkaaga ugu fiican yahay, waxaa lagu tilmaamaa essential waxyaala yani waxa waaye subaga muhiimka ah ee jirkaaga u baahan yahay ee nafaqada uu ka helo ee la-aantiis uusan shaqayn karin ama waxyaalo fara badan ay ka maqan tahay ayaa mataqaana lagu tilmaamaa. marka subagaas omega 3 fatska la yiraahdo kalluunka ayaa laga helaa. marka kalluunka faa'iidadaas koowaad ayuu leeyahay. faa'iidada labaad uu leeyahay waxa waaye kalluunka waa meel fiican oo aad ka heli kartid proteinka fiican ayaad ka heli kartaa. marka yani hilibka oo kale marka lagu tilmaamayo isaga ayaa ka fiican. proteinkiisa waxaa lagu tilmaamaa mid tayo leh, mid quality leh. marka salmon fishka oo kale ama kalluunka salmonka loo yaqaan haddaa cuntid wax badan oo fiican ayaad ka heli kartaa xagga protein quality leh ayaad ka heli kartaa. marka taasna waa faa'iidada labaad ee aad ka heli kartid kalluunka. faa'iidada saddexaad waxaa waaye waxaa lagu tilmaamaa kalluunka in uu leeyahay يعني maadooyinka antioxidant-ga la yiraahdo. antioxidant-ga waxa maadooyinka jirka ka celiya, yani waxa waaye cadowga banaanka ee kusoo socda ee ku imaanaya ayuu kala dagaalamaa. jirka inuu xanuunsado ama mataqaanaa waxyaalo kale ay jirkaaga ku dhacaan ama jirkaaga inuu jeexjeexmo ama nabare ay kasoo baxaan ayuu maadooyinkaas ilaahay ayaa ugu talagalay. cuntooyinka qaar ayaa laga helaa, kalluunka waa laga helaa maadooyinka antioxidant-ga la yiraahdo. marka taasna waa faa'iidada saddexaad aad ka heli kartid kalluunka markaa cuntid. faa'iidada afraad waxaa waaye kalluunka waxaa laga helaa potassiumka waa maado iyadana u baahantahay inaad heshid. badanaa dadkeenu mooska ayay cunaan, mooska waa laga helaa, laakiin xagga qualityga tayada markii laga fiirinayo iyo xagga numberkaba waxaa ka fiican kalluunka ayaa ka fiican potassiumka laga helo mooska. potassiumka faa'iidadiisa waxaa kamid ah xagga mataqaanaa blood pressureka uu u fiican yahay. faa'iidada shanaad waxaa waaye kalluunka waxa uu fiican yahay xagga weight losska wax la yiraahdo ama miisaanka zaidka ah ee jirkaaga saaran. haddii aad rabto inaad iska ridid hilib zaid ah calooshaada ay saaran tahay
يعني waxa waaye kalluunka waxaa lagu tilmaamaa siyaabaha meelaha ugu fiican ee aad cuntooyinka ugu fiican ee aad cuni kartid si aad ula dagaalantid يعني waxa waaye hilibka zaa'idka ah ee aad u baahnayn ee jirkaaga saaran haddii aad qudaar fiican samaysatid kalluunkiina aad ku cuntid يعني waxa waaye kalluunka caloosha ayuu ku socodsiinayaa musqusha ayuu ku geenayaa waana protein wax badan ayuu ku haynayaa nafaqooyin kale fara badan uu leeyahay waad ka helaysaa marka يعني wuxuu kuu fududeynayaa in hilibka zaa'idka ah ee saarana jirkaaga aad iska ridid faa'iida lixaad oo aan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo waxa waaye kalluunka dhaqaatiir fara badan oo nutritionka iyo dietka ku takhasusay marka ay baareen waxay soo ogaadeen in xataa qofka cuna uu la ogaanayo inuu ka hortago يعني waxa waaye heart disease-ka ama waxa waaye xanuunka wadnaha ku dhaca marka faa'iidooyinkaas oo dhan isku soo wada duuduub kalluunka faa'iidooyin fara badan ayuu leeyahay laakiin shardi waxaa ah kalluunka cunaysid يعني waa inaad markaa cunaysid aadan ku karinin wax saliid ah aadan ku karinin biyo waa inaad ku karisid ama aad ku samaysid يعني ama aad dubtid ayaa lagaga baxay marka wadamadan qurbaha marka aan joogno North America iyo Europe iyo meelaha kale ka akhri يعني kalluunka aad soo iibsanaysid ogow in uu organic yahay ogow يعني waxa waaye wild fishka kuwa la yiraahdo ayaa fiican oo badaha laga soo qabto laakiin kuwa wabiyada laga soo qabto waa laga fiican yahay marka isku soo wada duuduub waxaan jeclahay casharkan cashar faa'iido badan inuu idin ahaa waxaan jeclahay inaad la wadaagtaan casharkan dadka walaalihiin ah saaxiibadiin ah dadka aad taqaanaan intaan casharkan casharkiisa xiga iskaga arki doono waxaan kaga tegaa sidaas salaamta salaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu